نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكيد قريش هذا أنو كلمة بان للربائين مركلي يرادان حتى كلمة أي يرادان هي عرب أودنا مذهب النقنيان عرب عجب أودنا جزية كقاضيان كلمة سوى محي ولا إله إلا الله أبا جهل بصرك عوحو يري أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدق قولي لحدا إله عابديني أيا باهدا يدي دبولي كرلي محمد موحى ولي متكلي عابدا وارنك كعيه بوري ماشا إله يدينا عبادة دودنا هنكو صبرنا مرادك محمد وكلي يا دين ديسا كدينا يو كهرا يا ماهنا نغا مريم إلاده markay ka dareereen ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam isagii adeerkii baas ku soo haray markaasuu Abu Talib ayaa yiri adeer hada xumba kuma odhana waa sidee ma inta bay ka didayaan markaasuu adeer adigu kelmadda mar ii dhaw yiri qiyaamaha ku marxaati furay hal mar adigu ii dhaw yiri kelmaddaas maalin kasta waa u bandhigay adeerkii dacwad sakaraadkii markuu qabtay ayaa la yiri adeerka Abu Talib baa xanuunsan oo jiifo oo dhacay marka abu nabigu isku taagay alayhi salatu wassalam kolku uu soo galay Abu Talib wuxuu arkay dhinaca waxa ka soo ka fadhiya Abu Jahl ya uga soo horeeyay Abu Jahl baa uga soo horeeyay siraac xaq iyo baadilku wasgarab socdaan la soo marka abu nabigu u dhawaaday adeerkii ammi adeer ha كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة مالك قيامها نقوم مرخات فري وهنخو شفاعة قاده حل مرون كلمة عنك مغشي وكيل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركاسو يا أبو جهل بو يا أبا جهل باكويري أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب من ملة عبد المطلب بعد ما أنت كوي عنيسا دينتي أبو بياشن انتو تكتكتو دينتا عصوبة محمد ولي مدي مياد رومين السعود راعيسا هو أمسو هذا النبي قال سوير جديد صلى الله عليه وسلم أدر كلمة أمرنا بعد يبيع لي مكي مرنا بعد هذا هو أمسو هذا أبو جهل بس هو جديد مركب قدام بيس أبو طالب وحيري على ملة عبد المطلب بان كل انتهى محمد وسكك يداب وكيري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت كذا ذكوا جعلت النبي قال له ما هذه كريس دلالة هذه ولادها الدلالة هداية هذه ولادها وحويان إن أعطتك خيرك أدوي يدد إن أعطت كلمة أوب بندقتد إن أعطت نستحيسد إن أعطت دمقتد إن الدين تأوشيكتد وشغل هذا هذيك وياه لكن قلوب تودا أنك هاي نبا إله إليه هاي كان دون قلبك أنك نورك إيه هداية قلبك سجلين قد جعلت هذا ما هدين لسه أبو طالب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أديركينا هداية النصيب أمو سيل سلمان وفارس إلهي وسوهدي أبو لهب والنبي محمد أديرك اللحم ينا هداية النصيب أمو يلن بلال الحبش إلهي تبارك وتعالى وسوهدي يهدي من يشاء كودون إلهي سيهدي marka ilaahay asmaadiisa waxa kamid ah al-hadi hanuuniye al-hafid wa asmaada ilaahay ilaaliye isaga ku ilaalin sidoo doono kugu ilaalin meeshu doono kugu ilaalin goortu doono ku ilaalin bila asbaab sagaasha kan magaca ilaahay ee nabi maxamed uu yiri magacda wanaagsan ilaahay uu leeyahay ku alla baryo baahidiina ku weydiista culimadu leeyihiin sagaasha ka magac walba macna gooni u xambaarsan yahay magac walba macna gooni ayuu xambaarsan yahay
marka hidaayada asbaabteedu waa saddex bay culimadu yiraahdeen waa saddex shay awwal shay waa talab waa inuu qofku doono inuu hanuuno dad adiga aanad rabin ba ilaahay rasuulka inaad raacdo awaamirtooda da ilaahay rasuulkiisu adigana kuma rabaan kuma bahne ada u baahan diinta ada u baahan inaad hanuunto adiga u baahan inaad ilaahay adeecdo adiga u baahan inaad diinta islaamka baratood ku dhagtood ku dhaqanto ada u baahan waayo diintu ayada dadka dhigaysa diin la'aan waa dugaag baad noqon wadanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo saacajiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hindu soo gaalo mushrika oo wadanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ganacsadaha xidhiidh baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia aan laga helin badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad buu saari jiray ama container marka buu saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa reer Australia ahaa Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday ii soo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa tan alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday iigu darbukay markaas uu yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka wala cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga adiga soo iibsatay de ana ka iibiyo waan garano ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas uu yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday waa sanad yaro san dheero gacmo badan oo Hindiya ay ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas uu culimada idaan soo weydiin in shariicadeedu ii saamaxayso in kale taajir markuu muslim yahay oo iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaana inuu shariicada islaamka ku dhaqmo maxaa banaanayn maxay shariicadu banaanaysay maxaa ii banaanayn soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydi igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo وانا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو sheegay ويا منكي ورنتا وسنا صاحبا حين ودا معاملون inay maxaad igu qaadi weydii may ma qaadayo wax kale aniga wax kale oo xalaal ah hadaad ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diintayda ana ii saamaxayna ku qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tidhi aabbo ninkan muslimka intaa oo sanada mucaamaloonaysa muxuu inoogu qaadi waayay bay tidhi ilaahayna aabbo waa diintiisa ogoleyna naga daabuuri aabba ra'yi baan ka qabaa bay tidhi halkaas ra'yi baan ka leehay ra'yigaan ka leehay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay xambarino waxay tiraani arrintaas maskaxdeeda ma galeysay war kale keen فكرت لكن مسلم كيف التلفون كيس قبصتي ولا هذا الشيء وعيت البريد ولا نكو أركان دونيا وأيوه وين أنت وضيق عين كاسة يقول لي ويانا ما تقول يا أبيه الله صوتي أبيه الله صوتي بالبو مركا كمرتقى ذي مركا أدري مدى وحو مركا إسلامتي سيبو صوك حيستي حجابا وقبل متدينة ده markaas u soo gashay hoteelkii halkaada gabadhii fadhiisatay waxay tiraano adiga kula ballamay ruuxa kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskaygii
diintayda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula keliyoobo limaada waan ku geeya adiga maxram baad ii tahay maxram ima tihid maxram baad u baahan tahay nebi maxamed baa yidhi ninna naag ajaaniba inuusan la keliyoobin ilaa maxramkaygo la jooga mooyaane calayhi salaatu wasalaam taana horta qac bay ku tiri qalbigeedii diin baa yaa meesha taalle waxay tiri su'aal baan ku weydiinayaa diintaadu adiga waa maxay waa islaam iyaad aaminsan tahay ii sheeg dee allah baan aaminsanahay laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku alabsaar cirka abuuray dhulka abuuray marka halkii fursad waxay u noqotay inuu ninkii gabadhii dacwada siiyo inay iyadii halkii ku islaamto inay hoteelkii ku noqoto inay hooyadeedii aabbaheed ay ka dhaadhicisay diinta islaamka oo labadii waalidoo da'waaweyn ay ku qancaan inay diinta islaamka soo galaan hidaayadda marka ayaa haya nin acraabi oo magaalada madiina duleedka iga deganaa ayaa xoolihiisii neef ka miduu dhurwaa ka dafay yey baa ka dafay leanna markaasuu ka soo ritay baa la yidhi yeygii baa intuu soo eegay buu ku yidhi risiq ilaahay afka uu ii soo geliyey in aadanoo maxaad iiga ridatay buu ku yidhi waa dhurwaa oo kale matalan yey risiqa ilaahay afka uu ii soo geliyey in aadanoo maxaad iiga ridatay markaasuu ninkii dhagaha qabsado wuxuu yidhi waa cajabaah addibu yatakallamu kalaama alins ma yey baa luqada bini aadanka igula hadlaaya yeygii baa jawaabo wuxuu ku yidhi waxaa aniga iga cajab badan baan kuu sheegi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiina soo gaadhay oo warkii samada ilaahay u soo dhiibay bini aadanka uga warramaya oo dadku ay la yaaban yihiin taasaa iga yaab badan ee orada madiina tag buu ku yidhi dhurwaa yaa ka hadliyane allahu rabb alcaalamiin saxaabigii allah raalli ka noqday xoolihiisii intuu isku urursaday ayuu soo kaxayoo magaalada madiinuu soo geliyey leanna isla markiiba wuxuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidkiisu dhex taagan oo nebigeedii u tegey ninkii acraabigu yidhi yaa rasuul allah arrinkaasaan arkay markaa buu nebigu saxaabada u yidhi asalaatu jaamica buu nebigu yidhi asalaatu jaamica ereyga hadday saxaabadu ay maqlaan waxay ogaan jireen in baahi diineed masjidka nebiga ay taallo oo nebi maxamed xaggiisa baaqi inuu ka yimid bay ogaan jireen leanna nin walba markaa shaqada u haya markaa uu dhigaayay ka reerka jooga guriga uu ka soo baxaayey ka meeradda jooga meeradda uu ka soo dhaqaaqaayey ka beerta falanaya beerta uu joojinayey ka dugaanka jooga dugaanka uu xidhayey haddii ay maqlaan asalaatu jaamica ereygaa haddii ay maqlaan waa iclaan weeyaan bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inii baaqaya muslimiinee soo ajiiba hadday saxaabadu ay maqlaan nin walba shaqada uu markaa gacanta uu ku hayo halkaa intuu dhiguu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam waa taa iminka innaka ijtimaaca laynoogu yeedho weeyaan kulan diineed baa jira macneegu waa maxay baaq diineed baa jira soo ajiiba weeyaan yaa macshara almuslimiin markas alhidaaya jamaaco keliya maa waxaa ku kulmaysa ummadoo dhan baa loogu baaqa ijtimaaca inay ka soo qayb gasho oo waxaa la leeyahay war kulan diineed baa jira nuqsaan diineed baa caalamka taalle nuqsaan adduunya maanta adduunyada ma taallo nuqsaan adduunyo adduunka ma taallo bal adduunyadu maanta way biirtay nolosha bini aadamkuna cidhiidhi bay sii galaysaa haddaan doonayna inay bini aadamku cidhiidhiga ay ka baxaan waa rujuuc ila diin waa in diinta loo soo noqdaa markaa nuqsaan diineed baa dalkeenna iyo caalamkaba taalle nuqsaantaa diineed saan u kebi lahayn ayaa laynoogu baaqay kulankaa diineed ka soo qayb gala zamankii nebiga waxaa loo yidhi asalaatu jaamica hadday saxaabadu ereygaa ay maqlaan waxay ogaan jireen ay garan jireen in masjidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka jiro maaragtaane baahi diineed iyo dalab diineed shaqada nin walba u haya intuu dhulka dhigo ayuu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam markii masjidka nebiga lasoo buux dhaafiyey sidaa inaguba hadda aan u soo camirnay masjidka nebiga saxaabadu u soo camireen laakiin innakiiyo saxaabadu waxaan ku kala duwannahay aadaabta maxaan ku kala duwannahay maxaan ku kala duwannahay aadaabta salaadii maqrib salaadii fajar buu nebigu tujiyey jamca fii xajati lwadaac mambarkuu fuulay khudbaduu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga lagu yidhi yaa rasuul allah
صلاة الظهر باقي لقاري حل جيدي وكدا تجي النبي عليه الصلاة والسلام دور كيو قصري والنبي صحابة تجي هذا منبر كنت بقول نقضي عصر كيلا قاري النبي قال له يري وكدا تقول الله بركة وعصر كيف النبي تجي هذا مغرب كيلا قاري النبي قال له يري صلاة المغرب والنبي خطبة الصبح دي بلا بوجودي ما ينسوا منين أصحاب الرسول بينا ما يطلبن فردقي فرديون ما يبدلين باللي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فجر كي تلابي لا المغرب كي صحابته وحيد هذا وحي تقين النبي وكور رمي واحد جوغن وكور رمي واحد صوص عدن النبي وكور رمي نيجي نقول قلبك في عنابة نقول علم بالتميل أنا أصحابته مالكاس إنكو آلات بس إنه إنك وحفظوا بالله صحابته آلات دي هايستين دي هايستل شيئا وعرض شيئا دي قلبك يكو كدو من ينوح قلبك هي آداب لما ناس طيلة هاي قلب السوء جيدا هي آداب هي احترام يكون فريسان يمرك النبي قوار فرديان صلاة دي مغرب فجر مركو نبي ومنبر قفولة مغرب وكذا تبي هذا الله يقصه قبل وحكى ماذا حي لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أنا النبي نيجي ما تنبين دونه إني كان أمة نيجي ما تنبين دونه تبو نبي بيقولي كينا حاضر كي يرجعوا كينا ما قارسين قال فيش كينا حاضر قال جوه كما قارسين لذلك الصحابة رسول رضوان الله عليهم أجمعين الصلاة جامعة هدي أي مغلام ما هرجع في آذان ما آذان كمر كده سيقة آذان كإلى هاي أمة أخرى لكن مركز تو باهي دين النبي الصحابة والربعين ولك المضى وعو رجري هرجع هذا برجري الصلاة جامعة مركز المسجد نصوب وحدة فجري مركز النبي ويا لذيك عربي قال لي ورياته وعد ركال كان جوكسو أمة وشيك بوكي وأنك عربي جي أكلوا أقول الله وصلي يا رسول توجهوا أحباب مركز وقور رجل واحد أصحاب واحد مكتول أنت وش هيك أصحاب حيوان هضلي وحق هضلي يا كهلي يا كهلي الله رب العالمين جل جلاله مركز دينتا غالية شيء دينتا علاقة الله يشان دينته قيمة ويا ليس وانا واحد كلي الى هاي بني ادم وفوق قيمة يقول دينته إن أكرمكم عند الله أتقاكم دين قيمة له قل كيف قيمة ويا شيء أي قيمة ويا شيء شمبر بقيمة ويا شيء هدهد في زمن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين هدهد ومهندس روحوا يا جماعة للشبر كاس ما يشبيه أي كدوا يجيبوا النبي سليمان وشيء يجرب عليه نجي جنرالنا عيالشة عرض أي كرتا ما يشبيه أي كدوا يندرت أي حاجة نرت يا هوذا يا عمل هذا يا عيد وحنا يصابر ثاني من هذا علمك أو برتا لماذا محب من هذا علمك الله برنا إياه لأن من هذا جهل بين النشاء أما حيوان كبارك أفرونت ويلد شانيو لا يبقى كبارك أفرونت شمبر كاسوحو يقامنا كل كويقا ألقى بيو الله ما متر بيجرا ألقى بيو بغل متر بيجرا ألقى بيو كن متر بيجرا لأن مرقى نبي سليمان بوش يجري عليه السلام نبي سليمان مرقى عفاريت ومرقى عمر سينجري عفاريت مرقى بيها مرقى مصوت وريس إلا نبي سليمان إلهي وحوسيي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ملك عظيمة
وإسجد بديعتم بأنا مقلمين بإلى حيكون دافع جنك الله سخري وهذا كشمبرها الله قري وضبيش الله سخري وبورها الله سخري وحيوان كلهم الله سخري وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الكشمبرها اللي قال النبي سليمان عليه السلام قرآن هل ليس دواقع يجيب النبي سليمان لما قشيوا لك ولا عدين مركب ملكي قاسي تقول لك يا مركز نبي كشمبرها الله عدنايين يا قرآن انت القرآن تقول لك دواقع يجيب إلى حين مقشية زمن كاسو مركز شمبر كان يقول جنود النبي سليمان مكملها ما شبيه يكدوا ينو شيء بجري لأن حيوان أقوانته ولا نشاط مثال كسوقات شمبر بول كيرو شمبر دقيقة بول ألقو قسم يا بول كاس جيت كلانته وجل عصب بول قسم يا لانته وصلي صلي لانته وجل عصب ماشى وجل عصب أيو بول كيسك يصرع مركز بول بصداس كذا يا رصداس بعدين أنا قم بالبادية جولة طوله وحلقة التعليم من جيت وسط لبوها يسمي وضيان مركز ريرمية أنا نصوف فريسة تعليمتي مركز سانخوي الشمبرهاني جيت كان بولش أي قصة ميستين ما شاء الله أنت هلك أجل أحسن محي قصة ميستين بلي معنايا وعيد هذا لما شيء بوقدر لي لما شيء مركز هو الدفاع ويا الدفاع تكها هي مسكة أيا كعنا مركانا وكنت أيو كعنا halka marka masku ma gaari karo tukuuna halka kuma joogsan karo haduu ku joogsado uu dhacaya marka waayo wasniga uu tukuhu u leeyahay laantani ma xajin karayso ilaahay baa ku ilhaamiyay markaas ku dhashiisa u badbaadsado halka ugu jilicsan buu laanta ka sulay markaas roob kastoo daa dabayl kastoo timaada geedka oo dhaca mooyaane shimbirka buulkiisa inuu dhaco way adag tahay yaa cilmiga baray يا كل هامي إلهي مركز ساكن هذا السؤال كلا نويدين بولكا صدن هو قلا شمبرك صدن هو قلا محور الباك اللي قلا يريد محسن هو فوري وبولكا هو هاجيا صدن هو دحبر استمركا وعلوا في الشوب روب كستوي ماذا دنع كستو كي ماذا روب قاسم قلبوا لغل كيسس يا برينا injineerada inuu aqalka inay dhisaan investment ka qaadata laba tashan waa dhakhtar baa lagu oran wuxuu soo bartay saxarada bini aadamka sida loo baaro soo bartay waa dhakhtar baa lagu oran wuxuu soo bartay waa dhakhtarkii xoolaha daweynayay baa lagu oran xooluhu daweeyaa bas waa injineer muxuu soo bartay dhoobada sida loo dhiso soo bartay bas نوبة وما حيبا لغوراني كان خبير سياسي با لغوران كنت كسنة سوسعو تسبدل كيس كافر وكفى الله صلاة الفجر رمية كان سلوتكم وخبير با لغوران خبير عند ارقراتها وكفى الله تسبدل كيس كافر وكوي مرة يلا قورا يستوى بروفيسور با لغوران سؤال قبرك أنا ما يقال من ربك من نبيك ما دينك ولقلبك سوكم جلت وقلت إنكم أنبرنا محانا قلت أنبرنا لأن الجهل ما كبرنا إنكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي بين الشاقين الجهل كبرنا حيوانك كلمياه سيلموه بأفرنياه ماشي دقيين
qaabkay aqalada u dhisanayeen qaabkay u shaqaysanayeen way yaqaanaan waxna meel ma dhigtanayo law annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitana buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay talada u dhiiban lahaydeen ood u tala saaran lahaydeen tala saarashadii xaqa ilaahay uu niigu lahaa sida shimbiraha uu quudiya ilaahay nii quudin lahaa shimbirtu qafaskeega waxay ka baxdaa iyadoo caloosheedu ay maran tahay waxayna soo noqotay iyadoo caloosheedu ay buuxdo yaa arzaaq ilaahay baa arzaaq waxna meel ma dhigatay ugu taqdu khimaasan buu nabigu yidhi faariqata albutuun iyadoo caloosheedu ay maran tahay bay bixi iyadoo caloosheedu buuxdana way soo noqon dukaanna uma furno beerna uma falno iskuulna ma dhigato ilaahay baa arzaaq وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم دابة أرى فركيغا سوعنيسا ما جرتو أرزاقات هذا حنبار سنة أيكي إني كما با إلى هيري أنا كاني أرزاقنا أرزاقات أنا كاني هيري ما يقانان بري وحي عليان كما فكران بري وحي عليان عدة كلية إيه انقرقوا والقفوها يا بني آدم لا تسألني برزق غد كما لا أطلبك بعمل غد إلى هيدا حديث القدس إن آدنوا أرزاقات بري هاي سي ويدين صدر أنكم بواجب كبري أنا كرسي ويديني صلاة بريكو كما لقى ربا حتى ماي بعد عشاء بقى لقى لا عشاء بقى لقى ربا إلهي بقى كل أرزاقات بري أدوكم هاي سي ويدين دي وايو أنكم بواجب كبري أنا كقولها كما سي ويدين يبي كل يوم بيوم مالين والبا واجب كسالك على حساب تمية أدوكم مالين والبا أرزاقات دي أنك إيقا سوق بقى إلهي كل أنا أقول بلغ عليه أركا قودية وإلهي قلبي وضع يا قودية الله تبارك وتعالى أركا مخلوقا سإلهي أبوري قاركود حريرك أي دين لي يشين بيقيمة كو يشين سيدا شنبرك ودودك كامدة قرآنك لك قورة مقصديس بني آدم كنا وكسي حق جرا مركا حديد بني آدم كان إلهي كرامي إلهي وكدقي أشرف المخلوقات إلهي وكدقي حدود نسبته الله يشد دينتا يسروا بني آدم حدود دينتي إلهي وكتلقلوا علاقه الله يشنا بني آدم قيموا يلنا يهو دينتو هنا وحقوق ردسموا يا رحمك آدم يميسو دينتا بقح يقلل يأي يشنبر يمارك تاني حيوان قيمة ويا شيء هذا بني آدم مكلف ولبنا وإلهي مكلفي وأحكام الله صودجي وإلهي جل وعلا والنبي يكون صودري وكتبنا السماء عليك درتها وبس صودجي هذا يمرك بني آدم كلها حي قرتاه أيكون مرك زي بني آدم قيمة يلنا يا ولا ليا halka inagu aan ku qiimayna bini'aadanka maanta markii adduunyo loo dadaalay ashyaadii baa qaalib noqotay marka ashyaadii iyo materialkii ayaa qaalib noo noqotay lacagtii iyo ashyaadii waxaa dhacday in bini'aadanka maanta lagu qiyaaso lagu qiimeeyo ashyaadiisa walaakiin zamankii dadku ay wanaagsanaayeen ee diintu ay qiimaha lahayd ee dadku ay diin baranayeen ee dadku diin ka shaqaynayeen ee diin loo dadaalayay ee diin loo dhimanayay ee diin loo dhaqaale bixinayay diinta ayaa markaa dadka agtooda qiima ku lahayd markaa qofka xasba diinihi baa lagu qiimaynayay halka zamankeenna innaka dadaalkeennii markuu lacag iyo adduunyo iyo qabiil iyo mansab iyo adduunyo uu ku dhacay qofka waxaa ku qiimaynaa xasba dunyaa hadba intuu qofka adduunyaha istaa maanta lagu qiimeeyaa لماذا محادثك الدنيا لغو قيمنا يا مانتا لذلك كيبا الدنيا كبحي فكر كيبا الدنيا كبحي مقاله كيبا الدنيا كبحي تضحيات كيبا الدنيا كبحي
marka kii adduunyo badan baa maanta qiimaynayna maanta ila shaygan aad waqtigaagii oo dhan aad gelisayba adduunyaa soo maaha kolba kii kaa jeebroon baad markaa qiimayn zamankii dadku ay diinta u dadaalayeen ninba ninkuu ka diin fiican yahayna markaa la qiimaynayay 13 sannadood buu nabigeenu maka uu joogay uu saxaabada qulubtooda ka dhaadhicinaya laa ilaaha ila allah ilaahay garta ilaahay barta ilaahay caabuda ilaahay baahidiinna u sheegta ilaahay keligii ka baqa ilaahay ka amar qaata ilaahay adeeca 13 sano qulubtooda nabigu wuxuu ku dhaqay laa ilaaha ila allah يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله هذا هو الإيمان الإنساني منيب الأجل يا يايري زمن جاهلي يعني غير أيان مقالة مكة عباها يوصل راعي مركزان أركيبوا لمكة سوق مكة ننددك يكسوا غرين مركزوا ما هي دكت يقول قادوا مركزان عيقي وحانرك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحتاج أن ضدك كله قالوا هذا لا إله إلا الله والإيمان الإنساني لا إله إلا الله تتكالك أقصوا النبي قار كبتوا النبي كتورين قار عيد النبي كشيريين قار ويعايين قار غنروح بكتور فات مركا جاريين إلي يربى مركا النبي الله صعطي وزينب رضي الله عنها مركا سيدي النبي كوكيتي كلها هذا مارك كان عيدا يغنروح تنبو كشيريين وجهك مارك كان يسكغميت markaasuu marada oo ka dhacday nafta yar oo dhunteedu ay muuqato ayuu marada u saaru ka lahaa aabbo jirkaaga qari aabbaha inuu hoos u dhaco ka yaabin may shaqada kuma dulloobayna weeyaan xaq baan ummadda ugu yeedhaynaa xaqa marka hore la bilaabayo waa qadhaadh laakiin marka dambe waa macaan weeyaan amaa baatilku marka hore baatilku waa macaan laakiin marka dambe baatilku waa qadhaadh حقا بلو جيسو أما حي وقرات لكن مركز أبوها معان مركز هو تعب زائل مركز دمان وعلو دائم باطلك لكن هو بالعكس مركز هو باطلك وعلو زائل وياه مركز دمان وتعب خسارة دائم وياه markaasuu nebigu inantiisa ku lahaa hawalwelinaa bee marada jirkaaga saar markaasaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam 3 sannadood dacwadda magaalada maka dhexdeedana khufyu nebigu ku wada khufya sir cali buu u sheegay markaasuu cali ku yidhi aabbahay abaa taalib baan la tashan ha u sheegin buu ku yidhi aamus